السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ولا ليال مانتا وحان ربا أمان جعليستبا إنان حقا نقولو ذاقو خيار كا السلادة انت أوبادان هان كدر سرنو أيان ربا إنان نقولو ذاقو انتان هوري أسيقلين خيار كا كهذا الكيسة وحان نحسوسين لها channel كان سام channel حدا با نقلسو حدا وحان جعليستي إنا سبسكرايب كان نجيه اللوبين sharingka iyo like-gana intaba naga halmaamin taasina maaha amar laakiin waa codsi annagana waxay noo tahay dhiirigelin inaan hore u sii soconno ayaa annagana noo tahay taa hadaan ka imaado hore waxaan iskaga sii galaynaa khiyaarka iyo wixii aan faa'iidahan ka heli lahayn inkasta oo maaragtay marka sheyga faa'iidadiisa laga waramayay ay u fiican tahay qofku inuu ogaado qofku wax walba qabanayo maxaan ka helayaa maxaan nacam geed hadaa cunayso war maxaa faa'iido ka helaya qof inuu og yahay ayaa ka fiican inuu ogeyn qofku haduu og yahay waxan haw cunayo inuu faa'iido ka helayo waxa laga yaabaa dhadhankiisuba inuu ba cajibinay inuu isku qasbo isagiyo eegaya faa'iidooyinka dambe oo ka helayo oo jirkiisa oo ka helayo sida daraadeed ayaa uu u fiican tahay qofku wax walba ama uu qabanayo maxaa faa'iidahan ka helaya maaha waa ka soo qaad mas'alo qofku markuu salaada uu garanay wuxuu ka helayo ama uu salaadii ajarkeegi iyo faa'iidadeeda uu garanayn uu u tukanayo oo waa la tukadaayay tuko de bariya maanta haduu tukado sahan dambana uu ka tagayaa maxaa yeelay oo kale mas'alada waxaan soo qaatay soo qofku uu u fiican tahay inuu ogaado waxa u faa'iido ah geedkan khiyaarkani wuxuu qofku haduu maalin walba isticmaalo oo dadka isticmaalo waqtigiisa aad u isticmaala waa qof raba inuu jirkiisu oo caafimaad xanuuno badan oo ka hortago nacam raba jirkiisu inuu xanuuno badan oo nacam ka difaaco baa qofka baa aad u isticmaala xilliga geedkani waa aad buu faa'iidadiisu ugu badan tahay maxaa yeelay xanuuno badan wuxuu ka yahay difaac oo ka sii hortag buu ka yahay wax badan oo dhan xanuuno kalena duwo ayana uu yahay geedkani wuxuu leeyahay عناصر بدن أما وحولي هي معدن بدن وجركا وباهي هي مالنتي أردن جيد كن والله جهلا إن جيد كن وحيالها معدن تلاجهلا وبدن تهي وحال جهلا إن بقول كي بقى تنهرت وبيا جركا وبيا وباهي هي مالنتي والله جهلا وحال جهلا بروتين كوالله جهلا أو جيد كن ولي هي وحول كله ولي هي دهون وأنا عمد سبكير أو مصيبة نعم وحبلو قياسين أيولي yahay wuxuu leeyahay karbohaydraad buu ayuu leeyahay wuxuu leeyahay calcium xadiid buu wataa magnesium potassium sodium vitaminada B duu wataa nacam G A buu wataa nacam inta oo dhan oo vitamin ah iyo macdan ayuu geedkani xambaarsan yahay jirkaagiina intaba uu baahan maadaama intaba u baahan yihiin inuu jirkaagi inuu qofku marna uu halmaamin oo nacam si adiya u helayo si yoomiyan maalin walba hadii uu helayo inuu xabad ama laba xabadood hadii uu iska googoosto aw cuno waa jirkiisa wuxuu u qabtay faa'iido badan ayuu jirkiisa u qabtay geedkani wuxuu xanuunada ku hortago waxa kamid ah kansarka xanuunkan dilaaga noocyashiisa kala gedisan qaar ayuu ka hortagaa sida kansarka haweenka kaga dhaca candhada sida ka ragga kaga dhaca prostatada iyo ka haweenka kaga dhaca raximka intaaba wuxuu ka yahay nacam difaac ayuu ka yahay oo qofka haduu khiyaar isticmaalo xanuunkii ximaayo ka yahay oo difaac buu uga yahay inuu xanuunkii ku dhaco oo faa'iido inta leegna uu xambaarsan yahay wuxuu kuluu khiyaarkani uu waxeeyaa oo kale uu dawo u yahay sumamka jirkeena ku jirtana uu ka saara nacam haduu jirka sun ay ku jirto oo ka saara oo jirkaaga sunta uu ka saara bakteeriyada dhibaataynaysa jirkaagana inta uu ka saara oo dawo u yahay oo calooshana heede uu fiican yahay calooshana uu jilciya geedkani waxyaalaha kale uu fiican yahay waxa weeyaan ceeda qofku kuleylka jirkaaga ku dhacaya hoos buu u dhigaa nacam kuleylka jirkaaga ku dhacaya xilli walba wuxuu ku ridaa aad buu hoos ugu dhigaa maqaarkaaga sarana ceedu
haday ku dhacaysana wuxuu u yahay difaac iyo ximaayo u yahay oo uu ilaaliya oo si ayna ceedaasi jirkaaga dusha sare wax u yeelina geedkani gaadhe faa'iidadiisa ay u leeyahay waxyaalaha faa'iidada uu xambaarsan inta ugu badan waa maqaarka sare ee qofka bini'aadanka sida gabowga waxyaalaha oo dhan aad buu ugu fiican yahay oo jirkan oo ilaa indhaha uu wala fiican yahay geedkan oo maqaarka qofkan bini'aadankana aad buu u fidaa oo faa'iidooyinkiisu ka mid yahay lafahana uu koriya oo lafahana aad buu ugu fiican yahay oo deesdaan oo faa'iidadaasna geedku aad buu xambaarsan yahay wuxuu kaloo uu xambaarsan yahay ilkahaaguna waxay ka helayaan caafimaad oo ilkahaaguna ilka siro fudud u daadanay ma noqonayaan ilkahaaguna waxay ka helayaan caafimaad waxay ka helayaan daway ka helayaan oo sagna xaggaana ugu fiican yahay iyo bakteeriyada afkana aad buu uga hortagaa xilliga geedkan waxaan oran karnaa waa geedaha ugu fiican ama khudrawaadka la cuno waa geedka saddexaad ee ugu faa'iido badan marka loo eego faa'iidooyinkooda xilliga qofku haddii uu helayo inuuna maalin walba inuuna hadduu xabad ama laba iska yar googoosto waa jirkiisa dee wax faa'iido badan ayuu u qabtay bay ka dhigan tahay walaalayaal ma rabo inuu videogu nala sii taraaraxo horey noogula sii socdo inaan soo yar koobaan rabahay waxaan iga tegayaa asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu ismaqal dambe